Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaasheeda qiimaha iyo qayaalo meel kasta joogtaan kusoo dhawaada shabakada wararka ee Sayla 24 maanta waxaan idin haynaa faallo gaar oo aan ku eegayno bal waxyaalaha ka soo cusboonaaday mucaaradkii Somaliland oo diyaariyey mudaharaad selmi oo ay doonayaan inay xukuumadda madaxweyne muuse uu hogaaminayo ay kaga dalbadaan in doorashada la qabto dalkana qalalaasa siyaasadeed aan la gelin sidaad la wada socotaan Somaliland deris waxay la noqotay mar kasta oo doorashooyinku soo dhawaadaan inay gasho qalalaasa siyaasadeed oo dhanka sharciga ah dadkuna ay garan waayaan keebaa saxan xukuumadda Somaliland waxay leedahay waxaan furayaa ururadii waxaanay kala dirtay commissionkii iyadoo afar ka midii ay ilaa imika iscasileen uu ku jiro guddoomiyihii hore guddoomiyihii dambe ee commissionku doortay ayaan weli hadlin laakiin waa maxay sababta Somaliland mar kasta ay u gasho khalkhal siyaasadeed marka doorashadu soo dhawaato dadka qaar sharciyada ka taliya ama shuruucda caalamka yaqaana waxay leeyihiin constitutionka Somaliland ayaa isku minjo iyo madax maran oo aan la garanaynin ilaa iminka dhan loo raaco xeerarka la dejiyo ayaa cid kasta ay isticmaashaa cidda maalinta awoodda talada dalka haysaana ay sideeda u isticmaashaa oo gaadhiga shirkiisa hore ay soo dhigataa maanta sawiradan waxaa baahiyey xisbiyada mucaaradka oo ugu talagalay wixii ay ku soo bandhigi lahaayeen isu soo baxa ay doonayaan inay sameeyaan maalmaha soo socda shalay midowga Yurub safiiradooda ayaa Somaliland tegay dhammaantoodna way la wada kulmeen xisbiyada mucaaradka iyo xukuumaddaba dhanka kalena iyadoo duruufta siyaasadeed ay sidaa tahay oo Somaliland xilligan ay abaare ka jiraan roob yaraan ka heshay darteed haddana dadkii iyagoo maciishadii markii horeba khaatiyaan la taagnaaba waxa lagu kiciyey elektrigii iyo laydhkii ay shidanayeen dadku 70% wax ka badanna waa lagu kiciyey haddaba su-aashu waxay tahay reerka danyarta ah ee bishii $30 laga qaadi jiray waxaa laga qaadayaa ugu yaraan $100 magaalada Berbera ayaa waxay tahay magaalooyinka ugu saameynta badan haddii elektriga lagu kiciyo waayo markii horeba dadku waxay uga qaxeen oo magaalada uga tageen waa kulayl iyo leedh xumo dhan kasta ay ahaataba mas'uuliyiinta Somaliland arrimahan markay ka hadlayaan Ukraine bay eedda saaraan haddaba su-aashu waxay tahay Somaliland Ukraine ma bariiska uga iman jiray ma baastada uga iman jirtay ma daqiiqda uga iman jirtay waxa kaliya Ukraine ka iman jiray wuxuu ahaa qabandida iyo saliidda cuntada labadaana saameyn kuma yeelan Somaliland raashinka ay cunto badan waxay ka keeni jirtay Masar iyo Hindiya iyo Malaysia ama Indonesia laakiin cuntooyin ay Ukraine soo saartaa marnaba Somaliland ma iman jirin mana garanayo sababta ay Somaliland markasta Ukraine eedda u saarayso gaasta ayaa wadamada reer Yurub uga iman jirtay Ukraine Somalilandna gaas ma isticmaali jirin shidaal bay isticmaali jirtay haddaba haddii Ukraine ay nabadi ka dhacdo iyo Ruushka Somaliland yay eedda saari doontaa dadku waxay u baahan yihiin nolol tilmaan iyo tusaale leh oo ay carruurtooda ku korsan karaan laakiin uma baahna kolba meeshii wax ka dhacaan in eedda la saaro dadku labadii sannadood ugu dambeeyey ee COVID-ku caalamka ka jiray Somaliland eedda waxay saaraysay xanuunkii COVID-ka ee caalamka halakeeyey maantana Ukraine bay saartay maalin kasta madal iyo maalin eed la saaro ayay Somaliland madaxdeedu raadin doonaan waa anigoo ah Cabdi Axmed Jaamac oo idinkaga tegaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigana wax sheegayo iga diiday waani anigana wax sheegayo iga diiday waani wacdika la qoostay anigana wax sheegayo iga diiday waani anigana wax sheegayo iga diiday waani wacdika la qoostay anigana wax sheegayo iga diiday waani anigana wax sheegayo